maalmaha kamid uu nabigu ku yiri nin ansaariye buu ka yiri inantaada ii guuri aniga markaasuu yiri ninkii ansaarigi nacamma wa qurratu aynin buu oo nabi allah adiga ayaa ku heli kara buu adiga ayaa ku heli kara markaa buu nabigu anigu marrabiye waxaan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiina oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaan dabeecadiisa oo dabeecad waxa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka reer madiina oo dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanaya madiina oo dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninku nabigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigu yidhi nabi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuthmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonto inantayda xabsa waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonto inantayda xabsa waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabsa uu cuthmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagda'dii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka innaku aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horreeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay gurijoog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona maaha abibakr cumar isagaa u doonto u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta innaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo
waxa la is oran buu isleeyahay war matu cagalu hayaa ugu camaynaya may Umar baa socdo Uthman u bandhigay Uthman uu jawaabay Abu Bakar buu u bandhigay Abu Bakar waa ka aamusay mudayir kadib waxa soo doonay Xafsa radiyallahu anha Nabi Muhammad baa soo doonay alayhi salatu wasalaam dadna markaa uu nabigu guursaday markii guurkaasi uu dhamaaday ayaa maalin dambe Umar iyo Abu Bakar baa kulmay Abu Bakar baa hadalka qaato yiri ya Umar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaas uu ha aan kugu hayaa hortaabaan Uthman u bandhigay uu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyay adigana waa ku bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad oran mayana imaad oran markaas Abu Bakar ku yiri anigu waxaan ogaa Nabi Muhammad oo Xafsa hadal hayaan ogaa markaas sirta nabiga inaan sheegan diidana haduu nabigu Xafsa uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi ana ka gursan lahaa buu kaydi saasa marka nabigu ku ogaaday reer Madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxa nabigu ku ogaaday baa la yiri nin kasto ansaariya haday inantiisu qaan gaadho intuu nabiga u yimaado oran jiray ya rasuulullah gabadhaydii way gaadhay daadii gabdhaha lagu bixinaye hadaad adigu doontana waa ku diyaar hadaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nabigu marka u weydiistay ku yiri inantiina ii dhisa markaasuu nicma wa qurratu aynin ya rasuulullah wa ni'mad isheeduna way ku qabo way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nabigu ku yiri anigu maaha waxa rabe waxaan u rabaa Julaybibna waa ninka nin soo sheego waa la yaqaan dabiicadiisa markaasuu Julaybib ha u istaagay ninkii inanta hooyadeed ban la soo tashanaya dabaliikaadi markaasuu nabigu hay la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisii u yimiday wuxuu yiri inanteeni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tiri markaasuu rasuulkii Ilaahay ba soo doonay markaa bay tiri ni'ama wa qurratu aynin wa qurratu ayn wallahi wa ni'mad waana ku raaxaysanayna indhahayna ku farxaye waan siinay Nabi Muhammad markaasuu nabigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hada ayuu u rabaa markaasuu Julaybiba saasay tiri Julaybib markaasay tiri may Julaybi ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waanu diidnay hebel kala soo doonay waanu diidnay Julaybib waa ninka taqaanid adiguna ee magaalada Madiina dhan lagu hadal hayay lagu ballamay inaan inan bal loo dhisin war Julaybib u dhisameynay qof kale nabigu ha keeno hadalka markay ku tiro ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aniga dhageysta ma Nabi Muhammad baad amarkiisa celinaysan bay ku tiri ma Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam oo aniga ibixiyay oo Julaybib yiri siiya miyaad amarka Nabi Muhammad celinaysan oo diidaysan wallahi bay tiri halka uu Nabi Muhammad raaliga uu igala noqday aniguna raali baan ka ahay ibixiya bay ku tiri markaas ay ku tiri islaantii waa run hadalkaasi orado nabiga uu sheego ku dheh halkaad raaliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raali baan kala noqonay markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi Allah inantii Julaybib waan siinay aroos guurkii uu Julaybib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi Allah waa ninkee markaas Julaybib awaya markaas meydkiisa la doondoonay waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh
carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam